ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaranka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay dhul isku haysto oo ku yaala gobolka Banaadir. kulan lagu taageerayo madaxweynaha Jubbaland oo ka dhacay magaalada Kismaayo. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo laga hirgeliyay iskuul cusub oo loogu talagalay in wax lagu baro dadka waaweyn. madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ka qayb galay munaasabad lagu wacyigelinayo dhalinyarada doonaysa inay ka tahriibaan gudaha Puntland. deegaano ka tirsan gobolka Bari oo biyo la'aan xoogan laga soo sheegayo. jaamacadda Admis ee magaalada Hargeysa oo munaasabad sagootina u samaysay arday jaamacaddaasi dhigata oo deeq ka hesha wadamada Turkiga iyo Ethiopia. munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka soo qalin jabisay macaahid islaami ah oo ku yaala magaalada Buuhoodle oo munaasabad loogu qabtay magaalada Buuhoodle. naadiga hal-abuurayaasha Soomaaliyeed ee waddanka Suudaan oo munaasabad ku qabtay magaalada Khartoum ee waddankaasi Suudaan. waalidiinta dhashay wiil yar oo ku xanuunsanaya degmada Caabudwaaq oo dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay gargaar la soo gaaraan iyo wararkii ugu dambeeyay ee waddankan Britain. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena qadar xayeysiisa kadib u diyaar garooba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أو وناكسن daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Royal TV oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada London. warkana waxa idin la socodsiin doona anigoo Maxamed Cabdisalaada. wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta gaaray magaalada Kampala ee waddanka Uganda, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay. wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa markii ay gaareen gegida duyuuradaha ee magaalada Kampala waxaa si diiran u soo dhaweeyay xubno ka tirsan dawladda waddanka Uganda. waxaa warbixinta warkaasi magaalada Kampala inooga soo diray wariyeena Saciid Axmed. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari wafdi uu hogaaminayo ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda, iyadoo ay tahay ujeedka baarlamaanka Soomaaliya ay ku yimaadeen magaalada Kampala inay kulamo la qaataan baarlamaanka waddanka Uganda. waxaana arrimahaasi baada saxaafadda ugu warbixiyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Maxamed Cismaan Cawad. sharaf noo ah inaan maanta aan joogno dalka Uganda caasimadiisa Kampala. wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ay ka mid yihiin xildhibaano Soomaaliyeed oo ballaaran. waxaana safarkan aan u nimid casuumaad rasmi ah oo aan ka helnay gudoomiyaha baarlamaanka Uganda oo aan halkan qorshaha ugu weyn uu yahay inaanu heshiis rasmi ah ay ku wada galaan labada gole ee baarlamaan ee dalalka walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Uganda oo uu xiriir aad iyo aad u qoto dheer ka dhaxeeyo. heshiiskaasi mid horay loo soo diyaariyay weeye oo ay xogayaasha guud ee labada baarlamaan ay horay u soo qoreen. iminkana diyaar u ah in ay labada gudoomiye saxiixaan. haddii uu ilaahay yiraahdo berrito ayuu saxiixaasi dhici doonaa. kulamada ay la qaadan doonaan wafdiga uu hogaaminayo Professor Jawaari baarlamaanka waddanka Uganda marka laga soo tago ayaa waxa ay qorsheenayaan wafdigani waliba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya inuu sidoo kale ay kulamo la qaataan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda iyo waliba ardayda Soomaaliyeed iyagu wax ka bartay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda. waxaa dhici doonta inaan mujaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan aanu guud ahaan la kulanno. gaar ahaan waxaan aad u xiisaynaynaa ardayda Soomaaliyeed. dalkan arday Soomaaliyeed oo fara badan ayaa ka dhigata jaamacado, iyagana inaanu la kulanno. gudoomiyaha maxkamadda sare ee qaranka Soomaaliya Caydiid Ilka Xanaf ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxa uu faahfaahin kaga bixiyay dhul barihii la soo dhaafay la isku haystay oo u dhaxeeyay maamulka gobolka Banaadir iyo dad rayida oo la sheegay inay sheeganayeen dhul maamulku la wareegay. waxa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeena Aways Jilaco. abukaati Caydiid Ibraahim Ilka Xanaf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka
shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay muran dhul oo u dhaxeeyay maamulka gobolka banaadir ee dad rayid ah oo ku sugan magaalada muqdisho. ciidid Ibrahim Ilkaxnaf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxa uu sheegay in go'aan ay ka gaari doonto maxkamadda sare ee dalka maalmaha soo socda dhulkaasi, wuxuuna sheegay in maxkamadda la horkeenay cadeemo ku aadan cidda sida rasmiga u leh dhulkaasi, isagoona tilmaamay in maalmaha soo socda maxkamadda sare ee dalka ay go'aan cad ka gaari doonto iyadoo oo soo bandhigi doonta sababaha keenay in go'aan laga gaaro dhulkaasi. يعني أنا بحبك قبل لكن ما أنت وادي ذنيا تعودنا وحوجا بدل يربي سعودي إذا عدنا وين كشيء إحنا لا تبغى كم كأننا نقصي سجى جوينه بود ولا جوين يا بارني وحنو قاعد نقول يعني إسكار بريلة هاي قرية قبسيو مركها وقت يلا قالوا من يوم محكمة مركها أنا وحنو يوصلوا جوية تعودي مركها ما أنت جوين حكم يا الله ترى حكم كي عند هليس sidoo noqonayo cid war u haysa ma jirto wax kasta oo kale oo la lahaaba iska ilaawo wax xukunkaas wuxuu noqon doono garsoorka ayuu yaalaa maxkamadda sare ayuu yaalaa laakiin doodiisii iyo wixii kale way dhamaadeen mar hore ayaan warqad ka qoray bisha 4teedii bisha aan ku jira 4teedii ayaa warqadii ii soo qoray kadib oo ilaahay adeer yaa dacwadda inkastoo hadda mar walba dacwada intay socoto lagama hadlaba sideedaba waa iska sharci jira oo yaala oo haddii dacwad socota laga hadlo ay tahay contempt of court maxkamadii lagu erab darooday oo automatically maxkamaddu markaaba ay xidhi karto 3 bilood xarig ugu badnaan ugu yaraana 7 bilood xarig iyo ganaax maxkamad socota lagama hadlo maaha innaga oo kaliya waa dunida oo dhan. Aweys Maxamuud Jilcoroyal TV magaalada Muqdisho. munaasabad la doonayay in lagu wacyigeliyo dhalinyarada doonaysa in ay ka tahriibto gudaha Puntland ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Garowe. munaasabadani ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka Puntland. waxaa warbixinta warkaasi magaalada Garowe nooga soo diray wariyaheena محمد سعيد يوسف. xuska maalinta dhalinyarada ayaa maanta lagu xusay Garowe iyadoo socdaal dheer ay wadooyinka ku soo mareen dhalinyaro aad u tiro badan kuwaas oo iyagu funaanado ay yihiin oraahyo kala gedisan iyagu sita waxaadani markii dambe isugu yimaatay hoolka baarlamaanka taasi oo ay kala soo qaybsadeen xuska madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland wasaaradda shaqaalaha iyo isboortiga madax ka socota hay'adaha caalamiga iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. munaasabada maalinta dhalinyarada ayaa si weyn diiradda loogu saaray maanta arinta tahriibta oo mudooyinkii dambe dhibaatooyinka ugu badan dadka Soomaalida haysta isla markaana ay dhalinyarada badan ay ku qulqulayaan dalkaasi Liibiya si ay halkaasi uga sii talaabaan dalkaasi Talyaaniga. waxaana munaasabadani maanta lagu soo bandhigay dhibaatada dhalinyarada xilliga tahriib ay ku jiraan ay maraan taasi oo ah dhibaato aad u badan isla markaana mudooyin badan laga sheekeeyay. wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo isboortiga ee dowladda Puntland ayaa isagoo hadal kooban halkaasi ka soo jeediyay isla markaana sheegay in munaasabadani ay ugu tala galeen mid dhalinyarada lagu wacyigelinayo. la tago meelaha loo tahriibayo ama wadada la sii maro ama ha noqoto marka la gaaro destination-ka loo leeyahay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa xubnihii qaybta weyn ka qaatay hawsha iyada wasaaraduna isku taxalluqsay inay inahaas aad arkaysaan ay midba meel ka keento. shiikhii markii dambe xataa awal shiikh uu ahaa markuu khudbeynayay markii dambe daraasad dhab ah nin ku sameeyey oo isdul taagay noqday oo runtii aan aayadihii kaliya ku ekaane practical wuxuu kala soo kulmay inaan dulgeeyey abwaankii ku cabiray hawsha dhammaantood waxay muujinayeen iyo ninkii dhalinyarada ahaa oo buuggii murugada badnaa oo aan rajaynayno haddii ilaahay ogolaado dhammaanteen inaan wada gadan doono inaan wasaaradda iyo hay-aduhu ayagoo iska kaashanayaan inta badan la bixin doono si lacag la-aana oo iskuulaadka la geyn doono haddii ilaahay ogolaado. dhammaantood waxayna tusayeen musiibada qaran oo aan ku raacsanahay dhalinyarada iga horreysay hadallada ay yidhaahdeen oo ahayd aan ugu dhawaaqno musiibo qaran.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisamed Cali Shire oo isagu munaasabadaasi soo gabagabay ayaa dhalinyarada kula taliyay inay dalkooda iimaansadaan isla markaana dalkooda hooyo ay joogaan oo iska daayaan tahriibta. waxaynu soo bandhignay siyaasadda horumarinta dhalinyarada ee dawladda Puntland ay ugu talagashay aad iyo aad baa la isugu lafajiriyay in siyaasad qeexan oo cad loo abuuro dhalinyarada reer Puntland waxana waa ka hirgaleen waxana waynu ku taaganahay waxana waynu higsanaynaa waxyaalaha horumarka waxaan xusuustaa sanad guuradii hore meeshii aynu ka qabanay waad garanaysaan qol yar oo hoola oo mataqaanaa wasaaradda ayuu maantana hoolka aynu ku qabanayno quruxdiisa iyo qaayihiisa waa u jeedaan waa waxyaalaha ugu yar oo horumarineed ee dawladda maanta jirta ay ku tallaabsatay waxaan is leeyahay dhalinyarada gobolada fogfog ka timid ha iska noqonine. munaasabada maalinta dhalinyarada oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo shaqada iyo shaqaalaha iyo isboortiga ee dawladda Puntland ayaa waxa gacan badan oo caalami ah oo ku sugan magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland waxaana munaasabadaasi loogu talagalay in dhalinyarada lagaga wacyigeliyo dhibaatooyinka kala gadisan oo haatan ugu weyn tahay midda tahriibta. Maxamed Saciid Yuusuf, telefishinka Royal, magaalada Garowe. gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobolka Galgaduud ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu faahfaahin kaga bixiyay waxyaabaha uu doonayo in xilligan uu ka hirgeliyo gudaha gobolka loo magacaabay waxaana uu sheegay in wax badan uu ka qaban doono qaybo badan oo kamid ah horumarka gobolkaasi. Aways Jilcow ayaa warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho ka soo diray. iyadoo dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya digreeto ka soo baxday xafiiskiisa lagu magacaabay Xuseen Cali Weheliye Cirfe inuu noqday gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa haddana shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay qodobo badan oo la xiriira waxyaabaha uu mustaqbalka dhow qaban doono. Xuseen Cali Weheliye Cirfe waxa uu sheegay in wax badan uu ka bedeli doono arrimaha dhisbooyinka waxbarashada iyo caafimaadka deegaanada kala duwan uu ka kooban yahay gobolka Galgaduud. Galgaduud gudoomiyihiisa la magacaabay mas'uuliyiinta joogta ee ahlu sunna wal jamaaca maamulkii gobolka ee ugu horeeyay iyo xubnayaashii la shaqeynayay ee degmooyinka gobolka ka jiray maamulada kale ee gobolka ka jira Galgaduud kuwa dariska nala ah ururada bulshada ganacsatada culimaadudiinka oo aan isleeyahay dhammaan maanta heerka uu joogo gobolka ayaga soo gaarsiiyay dadaal badan oo ay soo sameeyeen waqti badan ay soo geliyeen dagaalo badan oo ka dhacay oo qoladan shabaabka ah xiliyadii dagaalada ay ka wadeen welina hadda ay ku guda jiraan waan isleeyahay dadkaasi kala gedisan ama qaybahaas kala gedisani oo ugu horeeyaan ahlu sunna wal jamaaca iyo maamulka gobolka ee hadda aniga iga horeeyay wax weyn ayay ka soo qabteen ayaan rabaa marka labaad inaan u mahadnaqo intaas kadib waxaan rabaa barnaamijka insha Allah tacaala wuxuu ku saleysan yahay aniga qorshahaygu 6 qodob oo madaxweynaha 6 tiir oo madaxweynuhu shaaciyay xilligii la doortay ay kamid ahaayeen nabadgelyada waxaan xooga saari doonaa xiriir xasilinta iyo adkeynta nabadgelyada dhammaan deegaanada hoos yimaada gobolka Galgaduud. Aways Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho. jaamacadda admis ee magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa maanta waxay munaasabad sagootina u qabatay arday wax ka barata jaamacaddaasi oo deeq waxbarasho ka heshay wadamada Turkiga iyo Ethiopia. waxaa warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyeena Yaxya Sheekh Ismaaciil. xafladani ayaa ahayd mid ay jaamacadda Armas ku sii sagootiyeysay todobo arday oo ka mid ah jaamacadda Armas kuwaasi oo ku guuleystay deeq waxbarasho oo bixiyay dalka Turkiga iyo Ethiopia. deeqdani ayaa ahayd mid guud ahaan loo tartamayay iyada oo ay Somaliland ka heshay deeqdaasi 10 arday halka 10kaasi arday ay 7 ka mid ah ahaayeen arday waxbarashadoodii digriga koobaad ka soo baxay jaamacadda Armas qaybteeda Hargeysa. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jaamacadda Armas agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Somaliland mas'uuliyiin ka socotay guddida tacliinta sare maamulka iyo hormoodka jaamacadda. munaasabadan ayaa ahayd mid loo soo agaasimay si aad u heer sareysa waxaana hadaladii laga soo jeediyay ka mid ahaa anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Armas waxaan doonayaa inaan halkan ugu soo dhaweeyo xafladda yar
oon ku sagootinayno ardaydii ku guulaysatay scholarshipkii Turkiga ee sanadka 2013. hadalka ku dheeraan maayo waxaan doonayaa inaan mar labaad u hambaliyeeyo kulana dardaarmo in dadaalkii ay muujiyeen ay halkaa ka sii wadaan. runtii ma wada fadhiyaan ardaydii ku guulaysatay programka scholarshipska guud ahaan haddaan ka bixiyo sawir guud sanadkan scholarshipka uu Turkigu bixiyay waxa uu tartamay 84 dawladood waxaana candidates ahaa oo applications ka xareeyay 55,000 oo qof oo caalamka kulay inta aan sheegay 48 ka wadan ka soo kala jeeda 55,000 oo qof ayaa xareeyay waxa ku guulaystay tartanka 4,000 oo qof ayaa ku guulaystay 4,000 oo qof Somaliland waxa ku yeelatay 10 ka mid ah ayaa sanadkan nasiibka Ilaahay u siiyay inay ku guulaystaan 10 ka ku guulaystay ee reer Somaliland 7 ka mid ah oo 5 ka mid ah ay caawa fadhiyaan waxa ka yimaadeen jaamacadda Admas waa from Admas University caawa waxaan halkan nasiib u helin oo aan inala joogin gabadha halkan dhexe ku sawiran Amaal Abdulqaadir Xasan oo ardaydii ugu horeysay jaamacadda ka qalin jabisay 2009 ahayd kana soo baxday kulliyadda ICT-ga oo hadda ku sugan waddanka Djibouti sidoo kale waxaan halkan imaka ku sugnay ninka koonaha wixiga Cabdiraxmaan Cusmaan Awrmiqe oo nasiib wanaag aabihii Cusmaan inala joogo oo isaga laftiisu Itoobiya ku maqan oo processkii fiisahan uu hadda maxaan ku dhahdaa ku guulaystay uu ku maqan labada xubnood hadda inala joogaan shantii xubnood kale waa xubnahan iga fadhiya gacantayda bidix marka laga reebo ninka koonaha wixiga Cabdixakiim oo ninka sawirkiisu dul suran yahay isagana shanta kalena waa shanta wiil ee halkan fadhiya waxaana runtii ka kala wada yimaadeen kulliyada kala duwan oo jaamacadda qaybaheeda kala duwan ha u badnaadaan kulliyadda dhaqaalaha ay sharaf weyn iigu tahay halkan anigoo ka wakiila komishanka tacliinta sare inaan halkan caawa waxoogaa kelmad ka idhaaho oo ah maadaama komishanku u xil saaran yahay tayada waxbarashada markaa waxaan leeyahay horta marka u horeysa waan ku hambalyeynayaa ardayda caawa halkan aynu ku sagootiyeyno ee tay ahaan ku soo baxday jaamacadda kale halkan iyaduna ah oo aan u arko ma garanaysaa inay jaamacadaha dalka ka mid tahay oo weliba dee la magaranaysaa inta badan la tixgeliyo jaamacado ka horreeyo hadday noqoto Hargeysa amba Goolis amba Xamuud way ka horreeyeen population ahaanna way ka badan yihiin waxaana la bidaa in macallimiinta meesha joogta ay ahaayeen kuwa senior amba ka waaya aragsan baa loo arkaa hase yeeshee waxaad u aragnaa halkan in waxaan la fulaynin ay ka soo baxeen oo ah in jaamacaddii Admas ay noqotay tii u horreysay ee 7 ay ka heshay kaalintii u horreysay xilka saaran waxa weeyaan wax quality leh inay soo saarto oo kuma inuu ka shaqeeyo Somaliland inuu caalamka u shaqo tago oo imtixaanada maalin walba lagu soo saarayo internetka la gelinayo intuu qorto inuu ka qayb galo oo ku soo baxo international. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah ugu horeyn gudoomiyaha jaamacadda Admas madaxda komishanka tacliinta sare ardayda qiimaha leh ee runtii tegaysa scholarshipka waalidiinta iyo ka soo qaybgalayaasha intiinaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu congratulations jaamacadda Admas waxa leeyahay komishanka rooka ay sheegay waa sacadeyseen aad iyo aad baan idinku haweynahay runtii aqoontiina waa ixtiraami doonaa ka wasaarad ahaan waana tixgelin doonaa waxaana noqon doontaa Admas runtii haddaad sidaa ku sii wadaan jaamacadda ugu fiican noqon doonta dal ahaan iyo dad ahaan aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum mas-uuliyiintii iyo maamulkii ka socday dowladda ayaa ku tilmaamay jaamacadda Admas in ay tahay isha koowaad ee ay leeyihiin ee dalkani Somaliland iyadoo ay jaamacadda Admas ku tallaabsatay tallaabo horle Yaxya Sheekh Ismaaciil telefishinka caalamiga ee Royal TV magaalada Hargeysa.
kulan ballaaran oo iskugu yimaadeen waxgaradka iyo guddigii dhowaan soo magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. kulankani ayaa waxaa lagu taageerayay in Axmed Madoobe waqti dheeraad loogu daro xilligii loogu talagalay in uu soo magacaabo golaha wasiirada ee uu yeelanayo maamulka Jubbaland. waxaa warbixinta warkaasi magaalada Kismaayo inooga soo dirtay wariyeena Faadima Cali. kulankan lagu taageerayo muddo kordhinta madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe la doonayo in lagu soo dhiso golaha wasiirada iyo baarlamaanka uu yeelanayo maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka soo qayb galay ergadii soo dhistay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland siyaasiyiin iyo marti sharaf kala duwan. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha farsamada Macalin Maxamed asagoona ka codsaday ergadii madasha iskugu timid inay muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha Jubbaland asagoona sheegay in muddadan 20 beri loogu baahan yahay in lagu soo dhiso golaha wasiirada iyo baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland. dhinaca kale kacantaaga ay sameeyeen ergadii meesha iskugu timid ayaa dhamaantooda waxay isku raaceen in la siiyo 20 beri mana jiraan dad ka hor yimid ama ka aamusay. waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay kulanka muddada loogu kordhinayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan in muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. waxaan maanta meesha waxaan isugu nimid inaan waqtigii hore oo iska ahaa oo dhammaad ah kii kale waxaana laga codsaday maamulka iyadoo danta guud oo Soomaaliyeed ay ku jirto danta Jubbaland ay ku jirto in 20 beri dib loogu daro kiina waa isku wada raacnay cidii deena male cid ka aamustayna male. dadka kale maamulka wuxuu xasuusinayaa in gabdhaha markasta Soomaalida gabdhaha waa dadaal bay u dhigaan codadka gabdhaha xildhibaannimada dowladda Jubbaland in laga qaybgeliyo si xaq ah. hadda taas waa arki doonaa haddii sida la rabo sidii aan rabnay ama laga ballan qaaday ay noqon weydo hadda dood baa ka imaanaysa. أنا magacayga waxaa la yiraahdaa ayaan aadan xareen waan ku faraxsanahay waxaan kamid ah ergada maanta soo qaybgalay waan ku faraxsanahay shirka muddo kordhinta maanta loo fadhiyo shirka aad iyo aad ayaan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha Allah in qeyrka soo bixi doono waxaan kaloo rajaynayaa in ay gabdhaha maamulku siin doonaan priority-ga oo si fiican ay maaragtay u qosli doonaan gabdhaha insha Allah taas aan rajaynayaa shirkan aad iyo aad baan ku faraxsanahay. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yiraahdaa Boolin Cali Muuse waxaan halkaan isugu nimid shirkan maanta lagu qabtay leh nabadgelyada iyo wanaagga waxaan u qabanay in waqtigeennii aan sii dheeraysano waqtigeennaas oo ah in maxay ahayd dowladdeena iyo madaxweynaheena aan jecel lahay in micnaha waqtigeeni yar loogu kordhiyo hadda iyo dan waxaan rajaynaynaa in natiijada ka soo bixi doonto ay noqoto mid noo hirgasha aan ku faraxno shacabka. teeda kaleeto dumarka Sembri waxaa dib loo riixaa gabdhaha Soomaaliyeed waliba gabdhaha Jubbaland waxaan jecelnahay maadaama doorkeena aan ka soo qaadanay in xaqayagana nala siiyo. Siimada aad baan ugu soo dhaweynayaa ergadii aqbashay muddada 20 ka dhashay. haddii aan saleynana waxaan oran karaa masaalix ayaa gashay muddo kororsiimada. laakiin waxaan doonayaa inaan dhinaca kale madaxda sare ee xukuumadda Jubbaland inaan u soo jeediyo ayaan doonayay inay dardar geliyaan hawlihii ay wadeen oo ahaa hawl hoosaadiyadii. si kastaba
kulankani maanta muddada loogu kordhinayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa noqonaya kii saddexaad waxaana la filayaa inuu noqdo kii ugu dambeeyay ay siiyaan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland asagoo la doonayo inuu soo dhiso golaha wasiirada iyo baarlamaanka Jubbaland. Fatima Cali Cilmuge, telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Kismaayo. magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa laga hirgeliyay iskuul cusub oo loogu talagalay in wax lagu baro dadka waaweyn waxaana la sheegay in wax badan oo lagu soo kordhi doono habbarista dadka loogu talagalay in wax lagu baro gudaha gobolkaasi Hiiraan. waxaa warbixinta warkaasi noo soo diray wariyaheena Xuseen Cabdi Jimcaale Diini. munaasabadan oo ahayd mid ballaaran isla markaana xariga looga jarayay iskuul cusub oo loogu magac daray Adult Commercial Secondary School ayaa waxaa maanta lagu qabtay daarta dheer ee Cawaale Building ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. munaasabada waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo si weyn ugu qanacsanaa furitaanka iskuulkan Adult iyadoo ay goobjoog ahaayeen aqoon-yahano waalidiin dhalinyaro qaar ka mid ah ganacsatada magaalada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. madasha waxaa laga soo jeediyay khudbada aad u fara badan waxaana muuqatay in inta badan khudbadaha ay si weyn ula dhacsanaayeen furitaanka iskuulkan Adult in laga furo magaalada beledweyne. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha iskuulkan cusub oo lagu magacaabo Maxamed Cusmaan Macow ahna uu ka hadlay muhiimadda cilmiga ay leedahay. marka wuxuu soo maray rafaad iyo dadaal badan waxaa ka waraacinaya ninkii la jiray markii dambe lagu magacaabay naanaysti weynadna sultaan ulama oo sultaankii culimada ayuu dhintay isagoo magaca la qabkaale laakiin goor waxbarasho bilaabay waxaa la sheegaa qasaska qaarkood ay sheegaan 40 min cumri isagoo 40 jir inuu waxbarasho bilaabay magaalada ku soo baxay wali yabeen dadku isagoo 40 jir inuu waxbarasho bilaabay laakiin waxbarashadii uu qasday buu ka dhameeyay wuxuu ku dhintay baa la sheegaa 62 meelaha ayaa la sheegaa isagoo laqabkiisu waa sultaan ulama sultaankii culimada oo cilmiga meel kasta loogu yimaado ومال كسدك علم كأخستان سوى دأوين هو بلا علم. إمامنا الشافعي رحمة الله عليه واثق نصيب علمه وكبرتي نفاذه كصبرتي فيتقصص كقاركود بحيث شيئا إن وراقدها ومارتي كقرني علمك 10 وكسو قادني مرة قال إن يدعي سي أرضها ورقات إدينا عن تبع كلام قرتين اسكت ورد أنتوا صار وصدق inuu meelaha ay ka banaantay wax ku soo qorto ubada casriga ka hadlay. qaar ka mid ah aqoon-yahanadii xafladda lagu casuumay ayaa iyana madashaasi ka hadlay. rinta aqoonta sideedaba waxay keentaa inuu qofku fikiro inuu horumar sameeyo waxaa aragtaan oo kudhagiya la leeyahay knowledge is the key of the development. aqoontu waa furaha horumarka marka la leeyahay micnaha waxa weeye waxaa fikir oo macnaha oo aqli ku dhisan oo ubad horumari kara oo ka imaan kara maskaxda waxbartay qofka waxbartay ayuu ka imaan kara. haddaan u soo noqdo iskuulka iyo muhiimadda oo walaalkay ka sheegay maamulaha Macow waa dareemi kartaan muhiimadda uu noo leeyahay maanta wax walba oo guulaysto adduunyada yani waa wax laga soo baaran tagay oo marka hore laga soo baaran tagay dadka managementiga barto ama maamulka barto waxay yaqaaneen kelmado ama dadka aqoon-yahanada markii wax la aasaasayo waxaa jirto waxyaabo la raaco waxaa ka mid ah ereyga la yidhaha smart wax walba inay ahaadaan wax specific ah la cabiri karo haddana la gaari karo waqti leh. dhalinyarada oo si weyn uga soo qayb galay furitaanka iskuulkan cusub ee Adult Commercial Secondary School ayaa laba xubnood oo dhalinyartaasi madasha ku sugnayd ka mid ah waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen furitaanka iskuulkan. iskuulkan aqoonta iyo cilmiga xambaarsan oo noogala hirgeliyay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaaladeena beledweyne. aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa macallimiinta maamulayaasha aqoon-yahanada noo soo abaabulay iskuulkan inuu halkan ka hirgalo. aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa macallimiinta maamulayaasha aqoon-yahanada noo soo abaabulay inuu iskuulkan magaalada beledweyne nooga hirgalo. midda kale aad iyo aad baan ugu baahanahay haddii aan nahay shacabka reer Hiiraan alxamdulilah ilaahay hanaga dhigo kuwii ka faa'iidaysto aqoonta. runtii way jiraan dad badan aan aqaano oo dugsi sare aan ka bixin oo haddana aan fadhiisan karin iskuulaadkan oo ardaygan da-dooda mise levelkooda aan la fadhiisan karin balse laakiin hadda waxaa usoo baxay jaanis ay ku baran karaan inay dugsi sare dhameeyaan ay kadib jaamacad gali karaan
runtii wallaahi waa farxad midda kaleeto aqoon-yahaniintan iyo macallimiintan waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalka ay sameeyeen runtii waa dadaal aan soo koobi karin qof walbana waxaa wanaagsan dadkiisa iyo inaha gobolkiisa iyo degmadiisa inuu waxbaro si kastaba ahaatee waa markii ugu horreysay oo iskuul lagu magacaabo adhalti laga furo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana uu iskuulkan uu xarumo ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa xilligan ku yaala iskuulo aad u fara badan iyo jaamacado lamana oga waxa uu iskuulkan kaga bedelnaan doono iskuulaadka kale ee xilligan ku yaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka xuseen cabdi jamcaalaadiini telefishinka caalamiga ee royal t v bartamaha magaalada istiraatiijiga ee Soomaaliya beledweyne naadiga hal abuurayaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Suudaan waxa ay munaasabad ku qabteen magaalada Khartoum ee wadankaasi Suudaan taasi oo ay ka soo qayb galeen ardayda wax ka barata halkaasi iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaasi Suudaan iyo waliba safaaradda Soomaaliya ee wadankaasi Suudaan waxa warbixinta warkaasi magaalada Khartoum ee wadanka Suudaan inooga soo diray wariyeena Jaamac Ukun munaasabadani ay naadiga abwaanada iyo hal abuurayaasha Soomaaliyeed ee Suudaan ku dhigteen caasimadda Suudaan ee Khartoum ayay ugu talagaleen farxadda ciidda inay ardayda iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Khartoum u soo bandhigaan bandhigyo kala duwan kulanka waxaa goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha ka socday safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah abwaanadii kulanka soo agaasintay iyo jaaliyada ku dhaqan Khartoum qaarkood waxaa kaloo ka hadlay gudoomiyaha naadiga hal abuurayaasha abwaanada Soomaaliyeed ee Suudaan intii ay socotay waxa ay soo bandhigeen ciyaaro kala duwan ruwaayado iyo maansooyin soo jiitay dadkii goobjooga ahaa ugu dambeyn waxaa ka hadlay qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan
buraanburaan inay heesaan hadday gabadhaadi waayo inay wax ku soo kordhiyaan barnaamij aad bay mudan wahay gabdhahaasoo ay taariikhda ku leeyihiin fanka iyo suugaana ama taariikhda soomaaliya taariikhdooda ku leeyihiin waa ka xumahay inay ka maqnaadaan inkastoo xafladda wala dhamaan waa inay kaalin caadaqur ka qaataan inta badan Khartoum xilliyada ay ku jiraan ardaydu fasaxa waxay soo bandhigaan bandhigyo kala duwan iyo nashaadaad ay kor ugu qaadayaan dhaqanka iyo hay'adaha dalkooda hooyo. Jaamacadda Royal TV Al Khartoum Sudan. munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday soo dhamaysatay qaar kamid ah macaahidda islaamiga ah ee ku yaala magaalada Buuhoodle ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi Buuhoodle waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaaladaasi. Waxa warbixinta warkaasi Buuhoodle inooga soo diray waryaheena Qadar Cawil Ismaaciil. munaasabadan oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 38 arday oo ka qalin jabiyay macaahidda diiniga ah ee Umusalama iyo Al-Furqaan qaybtiisa hoose dhexe ayaa lagu qabtay howlka shirarka ee macadka Umusalama. munaasabada waxaa ka soo qayb galay cuqaal aqoon-yahano macallimiin waalidiin arday Suldaan Saciid Cismaan Cali iyo Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed iyo qaybo kala duwan oo bulshada kamid ah. ugu horeyna waxaa munaasabada ka hadlay maamulayaasha macaahidda diiniga ah ee Al-Furqaan qaybtiisa hoose dhexe iyo Umusalama Sheekh Cali Cabdalla iyo waliba Sheekh Axmed Maxamed Samatar oo iyagu ka warbixiyay tirada ardayda ee labada dhinac ka qalin jabinaysa. waqtiga aad gaabanawgii waxaan warbixin ka bixinayaa xafladan ay isugu nimid ee aan fadhino. awalna aad iyo aad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadleeyahay hadda ilaahay kadibna waa idin mahadnaqaynaa dalabkii aad ku timaadeen awgeed. haddaan warbixinta u gudbo xafladda waxaan u qabanay macadka Umusalama ee icdaadiga iyo macadka Furqaan qaybtiisa icdaadiga ardaydii ka qalin jabisay marxala icdaadiya. waxaan kaloo la socota furitaankii macadka Umusalama oo la soo gaaray xilligii uu furmi lahaa. ardada qalin jabinaysa macadka qalin jabinaysa kolley macadka Furqaan waxaan kelmad siinay maamulkiisii oo ka warrami doona. marka ardada qalin jabinaysa tiradeedu waa 25 arday waana joogaan macadka Umusalama ka baxday waana siin doonaa shahaadadii iyo macadka icdaadiga ah. ardada sanadka takharujaysay waxaa haystay 10 arday oo la doonayay inuu gudbaan macadka sare Al-Furqaan. waxaa doonta aan ka siinaynaa shahaadooyin 13 arday. 5 ardayna way maqnaadeen fasaxi bay ku maqan yihiin oo shahaadooyinkoodii iyo riboodkoodii sawirradii iyo wixii baan la keenin. taas waa taas. waxaan u diyaarinay macadka sare Al-Furqaan inuu helo meel uu arday u diyaarsan oo ku habboon dugsiga sare. markii badan la arkay macadkiisa inay dadkii soo gelayaan oo doonayaan sharaacii dalbayaan laakiin baysinkii hoose iyo asaaskii ka maqan yahay baa macadina la asaasay. Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliya aadka looga yaqaano oo ka hadlay munaasabada ayaa ku dheeraaday faa'iidada cilmiga isagoo dhanka kale ka digay inaan si khaldan loo adeegsan cilmiga fasiraadana la bedelin. waxbarashadu waxay kaa rabtaa inuu cilmigu ku hanuuniyo oo wadada wanaagsan ku horseedo. اعلموا دينتا أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك والدار الوكيل عنك نظرتها. وهذا هو تمام قانونية قلت إلى المسلم وعرفي عن وعلمنا كازولي وكاك حينيا وحنيا وصخرة هي شكنا والرقب وخطأ والشبهة والشهوات بليانك الله وضع رسولك وحيانا الشبهة ودين تسيقا دينا بفهمته ودين تقوقا وعطو ونصوص تأتعام بحيثو وأرون تاسكا أخرسطو حورا أرون تانيا وقرار يقول أيني توحول لك بيكويا أخريو وميل باسبوك حيو طوائفتي منطي تاريخ دي قديم كاهي يقول هذا الشوغرة وحي كل مرين وهو يعني العلم يسحون فهمين لما خوارج اليابر مثلا وحي مركا وراكو بالعلمكي أصل قوها وذو خويسنا الأورنشري رسولك وأني يقول يعدل يا رسول الله في لك المتعد عدالة ما سمعت عدالة صريح
ninkii bay kuri ka waran markaasuu kaa waxaa ka iman doona tarankiisa ama dadkiisu waxay ahaan doonaan kuwa nooca iyo noocaas oo qowlkii khawaarij la sheegaya waa da'digooda in markaa noocaasi waa nooc inxiraaf ah oo culimada ka fog oo culimada la dagaalamaya oo waad aragtay nabiyullaahi maxamed ay ku baxeen oo ka hadleen oo maagaya ninkaas maxaad ka filaysaa marka wixii ka tarmayna wixii manhajkaa qaatay ilaa ku soosi kuwa hadda u kabadhigeena ku qaatay ee yidhi waxaa la yidhaha mujaahidiin baana la yidhahdaa ee kumaaday ummadda islaamka ahayd nin dumar bay dileen odayaal bay dileen culimaday ku khatimeen markii dambe iyagii baa islaayey oo nag iska dhigay wuxuu yidhi waxyaanan calaa bakrin akhiina idaa lam najid illa akhaana intaa kadib waxaa hadalka qaatay doctor cabdishaafi axmed cali oo ah maamulaha jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada buuhoodle iyadoo hadalka ay uga dambeeyeen cuqaal aqoon-yahano iyo waxgarad kale ugu dambaynna waxaa munaasabadda shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii qalin jabisay iyadoo shahaadooyinka uu guddoonsiiyey suldaan siciid cismaan cali munaasabaddana uu soo xidhay suldaanku khadar cawl ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee royal buuhoodle deegaana ka tirsan gobolka bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa biyo-la-aan xoogan waxaana kulan ay iskugu yimaadeen waxgaradka iyo odayaasha kasoo jeeda deegaanadaasi oo ka dhacay magaalada boosaaso ay sheegeen in maamulka puntland iyo dadka qurba joogta looga baahan yahay in gargaar degdega ay la soo gaaraan dadkaasi si loo samata bixiyo xaaladooda nololeed waxaa warbixinta warkaasi magaalada boosaaso inooga soo diray wariyaheena axmed muuse cali axmed jookar degmada baledhidin oo ka tirsan gobolka bari ayaa waxaa ka jira biyo-la-aan xoogan kadib markii muddooyinkii ugu dambeysay aysan helin wax roobaba waxaana jira abaaro baahsan oo ay si aada u dareemeen dadka iyo xoolodhaqatada ku nool deegaankaasi maamulka degmada nabadoonnada culimo awdiinka odayaasha dhaqanka kulan ay ku qabteen magaalada boosaaso ayay kaga hadleen biyo-la-aanta ka jirta deegaamadaasi baledhidin waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin sidii gargaar iyo biyodhaamis deegaanadaasi loogu samayn lahaa gudoomiyaha degmada baledhidin maxamed jaamac muuse cadaysay ayaa sheegay in ay marar badan ka hadleen biyo-la-aanta ka jirta degmada baledhidin iyo deegaanada ku xeeran mana helin gargaar biyood oo deegaanadaasi loo sameeyo ayaan waxaan leenahay meesha in loogu deeqo wixii loo awoodi karo khaasatan waxaa ku celina dhowr jeer oo ka hadalay adeecadaha lookalka ah waxaan ka sheegnay qayladhaanta biyodhaaminta ah welina ma hayno wax dowladda ama hay-adaha naloo soo xiriiray oo arrintaa wax ka qabanaya hadda waxaan ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in barnaamijkaas loo guntado waa barnaamij aada u liita in haddaa guda galo dhinaca biyaha caaga sida loo yaqaan afarqaada ah waxaa la siiyaa konton caagii caaga loo yaqaan balaasiiga waxa weeye ilaa 300,000 marayaan odayaasha dhaqanka degmada baledhidin ayaa maamulka gobolka bari dowladda dhexe ee puntland ka codsaday in ay wax ka qabtaan cabashada biyo-la-aaneed ee ka jirta degmada baledhidin iyo deegaanada ku xeeran waxaan ka codsanaynaa maamulka ugu horeeya heer gobol iyo mataqaanaa heer dowlad dhexe iyo heer baarlamaanba inay dhibaatooyinka aan qarsoodiga lahayn oo cabashooyinka annaga waxaa naga saaran yahay inaanu sheegno laakiin waxqabadkii dadka awoodda u leh waa maamulka weeye kamana hayno haddii waxay markii macnaha dhimasho fara badan timaado iyo cudurro fara badan iyo waxyaaba xaalad laba walba isbedelaysaa ma ahan macnaha waxa weeye heer waxqabasho markaa ma aha wey hadda ayay ugu dambayntii bay taagan tahay in maamulku u soo gurmado weeleeyona cabashooyinka iyo baaqiyada ka soo yeelaya oo maamulka iyo odayaasha ee degmada baledhidin layla cabdi cagtan oo ka mid ah qurba joogta deegaanada puntland ayaa ka hadashay biyo-la-aanta deegaanadaasi iyo abaaraha xooggale ee ka jira horta deegaamada haba kala fogaadeen laakiin anigu intaan ishayda ku soo arkay oo aan deegaan ahaan maray waxaan soo arkay runtii muuqaal aad u naxdin badan waxaan soo arkay dhulkii oo qalalay oo nabaad guuray oo roob muddo qabanin iyo dadkii oo harraad u baabay dhulkaas intaan marayay ma arkinin xoolo jidka daaqaya amaba daaqsin meelaha ku dhow kula talinayaa dhammaan qurba joogta meel kasta adduunyada ka joogaysaan codkayga iyo muuqaalkayga ka arkaysaan walaalayaal soo gaara dadkiina gargaara dadkiina caawiya wax u qabta waa walaalihiin waa ilmihiina ilmahoodii waxa dhibaatada haysato ha ka fikrinina inaad koronto haysataan oo biyo fiican haysataan oo nolol fiican aad ku jirtaan ka fikir qof kula mida inuu dhibaato ku haysato meeshii adiga degaan ahaan aad ka soo jeedtay isku xil saara inaad waxaas wax ka qabataan saasaan rajaynaya qurba joogta reer baledhidinna waxaan leeyahay walaal dadkiina u gargaara reer baledhidin laftirkooda waxaan leeyahay iyo deegaamada lamida
wax bin aadan gacantiisa ku jira baahini kama bixin karaan ilaahay barya ilaahay roob weydiista ilaahay isku xira ilaahay ayaa dadka baahida ka saari kara inkastoo degmada Baledhidin ay ka jirto biyo la'aan xoogan haddana bulshada ku dhaqan oo lagu qiyaaso dhowr kun oo qof waxa ay biyo dhaamis u aadaan tuulada buuq oo 150 kilomitir u jirta degmada Baledhidin taasoo shacabku ay sheegeen in ay tahay mid aad u fog gumaystaha Talyaaniga waxa uu degmada Baledhidin uu ka qoday ceel biyood ma san noqon mid laga faa'iideysto sabab jira awgood ayadoo booyadaha biyo dhaamiska degmada Baledhidin iminka ay ka marayaan $300 halkii booyadood Axmed Muuse Cali Axmed Joker telefishinka caalamiga ee Royal Boosaaso wiil yar oo ku xanuunsanaya degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waalidiinta dhashay waxa ay sheegeen in wiilkooda xaaladiisa caafimaad wax looga qaban waayo gudaha wadanka Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in wadanka dibadiisa loo qaado waxaana ay sheegeen in xilligan aysan awood u lahayn in wiilkooda ay u qaadaan dhinaca dibadda iyagoo baaq u diray dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uguna baaqay in ay gargaar la soo gaaraan waxaa warbixinta warkaasi magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud inooga soo diray wariyaheena Yuusuf Cabdi Shire wiilkan yar ee aad u jeegtaan waxa uu muddo dheer la daaladhacayay cudur ka helay maskaxda iyadoo marka aad aragtana aad ka dareemayso dareen naxdin leh waxaan saaka ku booqanay guriga uu ku sugan yahay inagoo halkaasi kula kulanay aabaha dhalay wiilkaasi intaanu ku sugnay guriga uu ku sugan yahay inanka yar ee xanuunsan ayaanu waxaan arkaynay isagoo oo sameynaya wax qof Soomaaliyeed dareenkiisa uusan qaadi karin waxaana madaxiisa uu la dhacay dhulka xilliga aanu ku sugneen halkaasi waxa xilliga uu xiran yahay uu sameynaya in uu darbiga ama dhulka madaxa ku garaaco xilliga la furana waxa gudaha magaalada aad ku arkaysaa isagoo xayawaanka iyo gaadiidka ku dhagan runtii markaanu eegno dhibaatada inanka yar soo wajahday waa mid qof kasta oo Soomaaliya ama Islaam uu dareemi karo waxaana imika jirta in inanka yar la geeyay goobo fara badan oo ka tirsan dalka gudihiisa wiilkan ayaa gudaha dalka wax looga qaban waayay iyadoona waalidka ilmahan uu la daalaadhacayo sidii ilmahan mar uu caafimaad u heli lahaa waa kan aabaha dhalay Cabdi Fataax Jeylaani Macallin Nuur oo ka warbixinaya dhibaatada soo wajahday inankiisa waxaana uu sheegay in xilligan ay cunugiisu soo wajahday duruuf xun isla markaana uu ka codsanayo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee daawanaya telefishinka in ay gargaar siiyaan magacaygu waa Jeylaani Macallin Nuur xirsiisiyaad wiilka aniga weeyay dhalay سأل جدًا بقول خيرته حالة ديسو ومد إلهي كشاكين كرو إلهي بقرن كرا امتحان كيا إلهي باكينا حنون كنا إلهي باكينا إنما أموالكم ولا أولادكم فتنة وإلهي مالك يا أولاد والله إنه فتنة واحد ما نكون جرا شن صنو أفر صنو كم ده أنا أصوّر هميني ما نحكي لقاقين أفر لا تكسع وان عيرسني ودبتاجنا ميلا بدن وان مري لخاتيل بدن منجي حنون كسوة حنون أنا جرني أفر لا تكسع وزدلية وقايلين يا حرق عديل غفرة وسكور ديا قارياش وسكلية دمرة كتو منيا عيال كادلية لقحون توجيريا الدين لحرنا مدحو لك سؤال اللي عنيو أفر لا تكسع مدحو يسبربرنيا وحا انتا أولي ربو صوحا صحدين أنا قرنين أو مقاديره أفر يلا تنسع قف بلادنا صح صناني قفر في مجرو ما قرتي هنتي سؤال بين أوقات كاتي هو يدي لشيء مركي هين ويدي ويك عربي أنا إلهي باسمر كبحية انتا سواك سمري هذا التلفزيون رويال تي في وحنا وقعديا أن أسود شدينيا مسلمين تولاها يا الصوماليين هذا هدونك عالم كأولن طويل كان حال كي سوي أركان فرق لي فورم لقلا الصوماليكم ما هم لا صومين ناقرن دولة اللي حصليان طول ما حصليان أنا وحي دبي أو يعني اللي كسب الصومالي هذي قرب قوته وحوين بيلا قبل كذا أنا قاعد نلعب في الدنيا المي نقرب حمالتها أنا هايو ما هي قبل كيس وصو صارتها لكن سوي كان رفضوا الباين هاي عالمية
intaasaad ka wada jeeda waxaan iga codsanayaa Soomaaliyeed iyo muslimiinay inaad ila geysaan ila daweysaan ila aragtaan tirkiisa wax telefoon ku taala hadda lugiisa inuu soo wanaxaysaan masaabiir waxa ku jira kabaha hadii loo geliyo kabaha waa iska siibayaa wuu iska ordayaa meel xun oo luuqa hadduu arko waa jiirayaa markaasuu dhunta intuu la galuuna horeyna oga bixi karin gadaadna oga bixi karin waa weeye waxna fahmi maayo waxna garan maayo marka waxaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad Soomaaliya iyadoo 24 sano dawlad la'aan waxaan ummadda u nahay oo u dhaqanahay waa caawimaad istaageerida aan istaageerayno haddaan Soomaali nahay marka waxaan doonayaa in dhibkaas layla arko in cunugan xaalkiisa ninka qofkii xadiis baana wuxuu ahaa ilaahay uu kaalmeeyo adoonka intuu walaalkii u kaalmeeyo haddaba qofkii Soomaaliyeed oo arkay muuqaalkan waxaa si naxariis looga codsanayaa in haddii uu wax gargaar siinayo inankan uu ku soo hagaajiyo nambarada shaashada ku qoran xilligaasi oo kala soo xiriiri karo waalidka iyo waliba xafiiska maamulka TV-ga Royal ee degmada Cabdwaaq Yuusuf Cabdi Shire telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Cabdwaaq warbixinta ayaa ugu dambeysay warkii oo kala socoteen Royal TV xaruntiisa magaalada London warka waxa idin la socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdi Salaada inta warka xiga ku kulmi doono dhamaanteen waxa idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh